Asalaamu calaykum. Waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka Wiilka Wanaagga. Mowduucana maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa sawirro iska hadlaya oo ku tusinaya macno gaar ah. Zamankan aan ku noolnahay waxaa aad loogu badan yahay isticmaalka baraha bulshada ama waxa loo yaqaan social media ilaa ay dadkoo dhan jeclaysteen in ay dadka la wadaagaan waalida ay sameynayaan. Xataa qofka haddii uu suubinayo afcaalul khayr ama wanaag waxa uu ku tusinayaa in uu suubinayo arrinkaas. Sawirkan waxa uu tusinayaa qofkan in uu dadka kale la wadaagayo khayrka uu suubinayo, balse khayrkiisa muxuu tari doonaa haddii ay ka tahay istustus. Sawirkan xiga waxa uu ku tusinayaa laba qof is ceersanaysa, midkood uu sii cararayo, midkoodna uu soo ceersanayo, balse markii laga dhex sheegayo media ama loo yaqaan baraha bulshada waxa uu ku tusinayaa sida ay u jeedaan. taasna waa xaqiiqada dhabta ah ee u dhaxaysa waxa laga tusinayo media iyo waxa aad xaqiiqada u arkayso. Sawirkan aan u jeedno waxa uu ku tusinayaa in mar walba la heli doono xalka. Sawirkan aan u jeedno wuxuuna tusinayaa laba ruux, midkoodna uu lacagta ku dul socdo isla markaas oo sii aadayo kor, midkoodna uu fuuli la'san yahay jaranjarada koowaad. xaqiiqada sawirkan ayaa ah lacagta in ay meel walba ku gaarsiinayso zamanka aan ku noolnahay. Sawirkan ayaa waxa uu ku tusinayaa laba qof, midkoodna ay calooshiisa weyn tahay, midkoodna uu dhabarkiisu wax saaran yahay isla markaas oo dhabarkiisu uu weyn yahay. Zamanka aan ku noolnahay qofka taajirka waxa laga garanayaa calooshiisa, halka qofka maskiinka ama faqiirka ah laga garanayo dhabarkiisa. Cilmi la'aanta waa iftiin la'aan. mar walba aad wax sii baratana waa markay sii kordhayso aragtidaada ama aqoontaada